madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa maanta ku wajahan magaalada dhuusamareeb kadib diidmadii uu ka muujiyey doorashada madaxweyne qoorqoor. warkan wariyaha kulmiye ee gaalkacyo liibaan cajiib xaaje ayaa goordhow soo diray. madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu wadaa inuu maanta u amabaxo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kadib markii dhowrkii bilooda ugu dambeysay uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo. ilawareedyo ka agdhow madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegayay in socdaalkiisa uu salku ku hayo sidii loo xalin lahaa tabashadii uu ka qabay doorashadii lagu doortay axmed cabdi kaariye qoorqoor islamarkaana horey uga soo horjeestay doorashadaasi. sidoo kale warar qaar ayaa sheegayay in madaxweynaha lagu wado inuu ka qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug kaasi oo lagu wado in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmuduga. madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa muddooyinkii dambe waday ololo uu kula heshiinayay siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulkiisa kuwaasoo uu ku qancinayay inay la shaqeeyaan. muddooyinkii dambe ayaa waxaa gaalkacyo ku sugnaa xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasoo deegaan doorashadoodu ay tahay deegaanada galmudug islamarkaana la kulmay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geelle xaaf islamarkaana ku qanciyey inuu la heshiiyo hoggaanka cusub ee maamulka galmuduga. liibaan cajiib xaaji, raadiyo kulmiye, gaalkacyo. guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa weli waxa uu diidan yahay in uu xilka wareejiyo iyadoo xiisad arintaasi ka dhalatay maanta ay ka taagan tahay magaaladaasi. farxaan maxamed xuseen ayaa dhammaystiraya. guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ilaa hadda diidan inuu wareejiyo xilka guddoomiyaha gobolka, waxayna wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ay sheegayaan in xiisad u dhaxaysa guddoomiyihii hore ee gobolka iyo guddoomiyaha cusub ay ka taagan tahay magaaladaasi. cali jeyte cismaan guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo goordhow warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka taagan magaalada beledweyne uu doonayo inuu ku dhammeeyo wadahadal balse aan loo baahnayn in la dagaalamo. waxay ka bilowday shidaha iska socdaahay ma jiraan. waxaan diyaar u ahay aniga qof kasta iyo cid kasta xafiisaan iyo ka mas-uulaala inaan la fadhiisto, waayo dadku markay wax ka dhexeeyaan oy heshiis yihiin ayay wax wadaagi karaan. haddaan dadku wax wadaaginna wax horumaroo iman karayaaba ma jiraan. waxay saamaynaysaa security-ga, waxay saamaynaysaa dhaqaalaha, waxay saamaynaysaa horumarka, nabaddarradu wax kastay saamaynaysaa. heshiisku ma aha oo keliya xabado laysku sayrayo ama laysku ridayo keliya ma aha. isriiraaxa siyaasadeed waxaa laga heshiinayo ku jiraa. maxaan ku idhaahdaa faham darrada kaloo beelaha dhex taallaa waxyaabaha laga heshiinaya ku jirtaa. waxaan diyaar u ahay wax cid kasta ama reer soomaaliya ha noqoto ama koox ha noqoto ama qof ha noqoto waxaa laga heshiinayaa sumad gaadha kuma yaallaan inaan la fadhiisto ka dhegaysto maxaan ku idhaahdaa xalkeedana aan u dheganuglaado. madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa dhowaan xilka u magacaabay cali jeyte cismaan islamarkaana uu xilka ka qaaday cali maxamed caraale kaasi oo ilaa hadda diidan inuu wareejiyo xilka guddoomiyaha gobolka. mahadsanid farxaan maxamed xuseen. maalmihii ugu dambeeyey dagaal beeleedyo sababay khasaaraha isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaay ka dhacayeen gobolada shabeellada hoose iyo jubbada hoose. dadka la dilay waxaa ka mid ah dumar iyo carruur. haddaba maxaa xilligan dib u soo cusboonaysiiyey dagaal beeleedyadaasi dalka ka dhacay? warbixintan waxaa ku eegaya waryaheenna xuseen cabdulla maxamed. deegaanada fuuma, kooyaame iyo shabeelle oo qiyaastii 40 ilaa 50 kilomitir galbeedka uga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo magaalooyinka wallaweyn iyo diinsoor oo ka kala tirsan gobolada baa iyo shabeellada hoose waxaa ka socda dagaal xun oo saqiiro gowrac iyo urduxato ah oo u dhexeeya beela halkaasi wada dega. 3 toddobaad ee lasoo dhaafay magaalooyinka kismaayo, diinsoor iyo wallaweyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 150 qof, kuwaasoo qaarkood ku dhintay dagaallo ay galeen halka qaarkoodna loo dilay aanooyin qabiil. dadka dhintay 13 ka mid ah waa carruur ka yar da'da 10 sano halka 8 ka midana ay yihiin dumar qaarkood uur leh. sidoo kale waxaa ku jira odayaal waayeello ah oo gaaray da'da 70 sano. qaar ka mid ah carruurta iyo dumarka la laayay waxaa loogu tagay guryahooda iyo dugsiyada qur-aanka, waxaana dilkooda loo adeegsaday rasaas iyo gowrac. beelaha qaar ee dagaalka ku jira ayaa baraha bulshada ee internetka soo dhigaya muuqaallo ay ka soo duubeen dad ee laayeen oo ay ku jiraan birmageydo, waxayna u arkaan jab iyo guuldarro weyn oo ay gaarsiiyeen dhinaca ka soo horjeeda.
xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid a xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa sheegay in carruur badan iyo dad kale oo waayeela ah oo aan dembi gelin la laayay boqolaal kalena ay barakaceen. may dad badanaa dhintay oo labada dhinac ah. carruur yaryara la dili, ilmo yaryar oo muxuu ahaay waxa la sheegi karin waay, ilmo yaryar oo wax makasta haween dadka noocaasa la dili. dad ilaa 25 far u dhaaf ahaa dhintay oo ay ku jiraan 9 qof oo magaaladii oo nabadda inta ka shaqo tagay baadiyada ka shaqo tagay shaqadooda ku maqnaa kadib magaalada markay waxay soo shaqaysteen soo islaayeen jidka loo galo la dili. waxaa ka mid ah dad magaalada cawada ay ka dhacaysay aan ka qaxin oo maata ahay oo nimankaas dadkaas la dili markii la maqlay kadib guryahooda lagu laayay oo looga aaray nimankaas dadkaas la dili looga aaray. faarxumo weynaa ka dhacday meesha, waana ka xumahay, waana ka tacsiyeynaya dadkii iyo eheladii dadkoodaas ka dhinta sawir iimaan allah ka siiyo. waxaa hubaal ah cid kasta oo dagaalkaas furisay inay dembiilayaal yihiin. waxaa aad u yar dadaalka ay wadaan maamulada koonfur galbeed Jubbaland iyo dowladda federaalk ah ee Soomaaliya, waxayna qayb ka noqdeen dadka diraya baaqyada ku aadan joojinta colaadahaas halkii ay ahayd inay ka shaqeeyaan joojinta dhiiga daadanaya. senator iftiin xasan baasto oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ah ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay qof kasta oo colaadaha socda joojin karta inay ka qayb qaadato sidii loo badbaadin lahaa birmigeydada la laaynayo iyo dhalinyarada isdilaya. waa dagaal ahli ah, dad walaal ayaa meesha ku dagaalamayo oo ehel ah oo xigaal ah oo dad hadda maanta aan ku dhigi karo waxaasay ruusan yihiin waa dhaafisan tahay. marka waxaan leeyahay baaq nabadeed baan dirayaa oo labada dhinac ah oo deegaanada odayaasha Soomaaliyeed oo deegaanka ka soo jeeda inay arrintaa ka qayb qaataan, arrintaa gurmad ka sameeyaan, la joojiyo dagaalkaas. waa dagaal ahli ah, waa dagaal walaal, waa dagaal sokeeye, waa dagaal xigaal ah dadka isdilaayo maaha wax micno maanta isku hay male. dadku maanta Soomaaliya carradu waa ka badantay, wax la isku dagaalayo wax la garan kara maaha. waxaan leenahay war allehiin allah hadduu yahay joojiya dagaalka labadiina dhinac oo walaalaha oo heelka oo mas-uuliyadooda aan hayna anagu. waxaa dhib nagu filan inta meesha maanta ku dhimatay, inta ku dhaawacmay usbuucdan iyo baryahan meesha dagaalka ka socday. waxaan ku baaqayaa in dagaalka la joojiyo dadka walaalaha oo ku dagaalamaya meesha. waxaan markasta ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka. waa ku dhimay oo kugu dhimay waxa la dilay waxa luusa dilay waxaan garan karna maaha. odayaasha dhaqanka ee qaar ka mid a beelaha dagaalamaya ayaa idaacadda kulmiye u sheegay in dagaalada socda ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin dana dhaqaalo iyo mid siyaasadeed ka leh, halka qaarkoodna ay sheegeen in lagula dagaalamayo hub dowladeed iyo mid maamul goboleed. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guddiga arrimaha gudaha ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ayaa toddobaadyo kadib markii la laayay birmigeeda badan soo saaray war-saxaafadeedyo lagu dalbanayo in la joojiyo dagaalada socda xilli goobaha lagu dagaalamayo meelo aan ka fogeyn ay joogaan ciidamada qaranka iyo kuwa Jubbaland. Kismaayo iyo Wallaweyn oo ay dagaalada ugu daran ka dhaceen weli waxaa ka socda abaabul dagaal, waxaana dhinacyada u imaanaya gurmadyo. mana jirto cid ilaa hadda ku baxday dagaaladaas sidii loo joojin lahaa marka laga reebo baaqyada warbaahinta loo marinayo. waxaana dowladda federaalk ah iyo maamulka Jubbaland lagu dhaliilay siday u wajaheen arrintan. wararka gobolka Galgaduud markaan haddii aan eegno dagaal beeleed dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa maanta waxa uu ka dhacay gobolka Galgaduud. Sharmaarka Suule ayaana inoo soo diray warkan. inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku dhintay, halkana dhaawac ayaa soo gaaray kadib dagaal ku dhex maray deegaanka Ballecad oo u dhaxeeya Dhabbad iyo Cadaado. dad xoolo dhaqata oo halkaasi wada dega. dagaalka oo waqti kooban ka socday deegaanka ayaa lagu soo warramayaa sidoo kale inuu sababay barakac ku yimid dadka xoolo dhaqatada ee halkaasi ku noolaa. mid ka mid ah dadka deegaanka Ballecad oo la hadlay raadiyo Kulmiye ayaa ka warbixiyay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Ballecad. waa dhaaween
هالشيء هذا دوري ومشي كردوي هذا hadda dagaalku ma socdaa حبط ما صوت هذا بصوت قبل عاد لقيت شو كدو والغطي ها والغطي كانوا صورين hay ilaa hadda ma jirtaa cid ku soo baxday ما رغم عندي marka dagaalku goormuu bilowda taasina man rogana iyo marada kaasa halka kaasa waxnaba صورين ولنا حبط هذا waa socota marka qasaaraha bal ka waran dhinaca kale la ma sheegi karo qasaaraha ma sheegi karo wali ma tirko حبط ما صوت ما أنا ضد سؤال غتابان ahayn ma darata laakiin ma kan gaagay inkastoo hadda uu taagan yahay dagaalka haddana waxaa deegaankaasi laga dareemayaa xiisada ka dhalatay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka Ballecad waxaana labada dhinac ay wadaan ciidan aruursi iyadoo cabsi badan laga qabo in mar kale dagaalku halkaasi ka dhaco maahan markii ugu horeysay oo deegaanka Ballecad ay ku dagaalamaan dadka xoolo dhaqatada ee halkaasi wada dega waxaana marar hore sidaan oo kala dhacay dagaalo u dhaxeeyay kuwaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa hadda ma jirto cid ku baxda oo ka tirsan maamulka galmudug iyo waxgaradka labada deegaan ka soo kala jeeda sharmaarke maxamed maxamuud radio kulmiye magaalada Cadaado Jubbaland ayaa ku dhawaaqday guddiga ka hortagaya xanuunka coronavirus sida warkan Kismaayo uu kaga soo diray Cabdimajiid Cabbaas Aadan warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ahna kusimaha madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu magacaabay guddi ka kooban wasiiro iyo ururada bulshada rayidka kuwaasi oo shaqadoodu ay tahay ka hortagidda iyo la socoshada xanuunka coronavirus-ka oo dunida saameeyay guddigan oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo ururada bulshada rayidka ayaa waxa xoghayo loogu magacaabay Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciise oo ka socda ururada bulshada rayidka guddigan ayaa shaqadoodu lagu sheegay in ay tahay la socoshada iyo xakamaynta xanuunka COVID-19 oo dhawaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay shaacisay in kiisas dhowr ah laga helay Soomaaliya Jubbaland ayaa waayadan dambe waday dadaalo looga hortagayo caabuqa coronavirus-ka waxaana magaalada Kismaayo laga hirgeliyay xarun lagu karantiilo dadka qaba caabuqa COVID-19 si aysan dadka kale uga gudbin caabuqan oo dunida saameeyay warqadda ka soo baxday xafiiska kusimaha madaxweynaha Jubbaland ahna madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere ayaa la faray guddiga in ay shaqadoodu ka soo dhalaalaan maadaama dalka oo dhan xilligan ay ka jirto cabsi ku aadan xanuunka ka oo saameeyay dhaqdhaqaaqyada iyo waliba in si ku meel gaar ah loo xanibo goobaha waxbarashada iyo kulamadii ka dhici jiray magaalada Kismaayo tan iyo markii ay Jubbaland ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah loo xirayo goobaha waxbarashada iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan ayaa waxa uu ka dhaqan galay amarkaasi deegaanada ay Jubbaland ka taliso waxaana war saxaafadeed bishii hore horaanteedii aynu ka soo gudubnay ka soo baxay Jubbaland looga reebay amarkaasi gobolka Gedo maadaama Jubbaland ay guud ahaan bashaacisay in ay gacanta ku haynin gobolkaasi oo ay maamusho dawladda dhexe ee Soomaaliya Cabdilmajiid Cabbaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo haddii aan dib ugu laabano wararka magaalada Boosaaso xirmooyin jaad sharci darro ah ayaa maanta waxaa lagu gubay magaaladaasi Cumar Maxamed Soomana ayaa dhameystiraya taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa goob fagaara oo ku taala magaalada Boosaaso waxa ay ku gubeen xirmooyin qaad ah oo la doonayay in si sharci darro lagu geliyo gudaha magaalada Boosaaso xirmooyinka qaadka oo jawaano ay ku soo qariyeen dadkii watay waxaa gacanta ku dhigay ciidamada amniga ka hor inta aan la gelin gudaha magaalada Boosaaso inkastoo laamaha amniga aysan u suuragelin inay gacanta ku dhigaan dadkii watay jawaanada qaadka taliyaha qaybta booliska gobolka Bari gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud oo goobta kula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in si walba oo lagu soo qariyo qaadka la doonayo in la geliyo gudaha magaalada Boosaaso ay ciidamada ammaanka soo qaban doonaan isla markaana fagaarayaasha lagu gubi doono taliyaha ayaa u mahad celiyay ciidamada booliska ee ku sugan kontaroolka magaalada Boosaaso kuwaasi oo qabtay qaadka xilli la doonayay in si qarsoodi ah lagu geliyo gudaha magaalada Boosaaso sidoo kale taliska qaybta booliska gobolka Bari ayaa digniin u diray cid kasta oo doonaysa inay qaad sharci darro ay geliso gudaha magaalada Boosaaso kuwaasi oo doonaya inay isku dayaan sidii ay ku jebin lahaayeen awaamiirta dawladda ay ku mamnuucday in qaadka aan la gelin gudaha deegaanada Puntland si looga hortago cudurka coronavirus mahadsanid Cumar Maxamed Soomane dowladda Ethiopia ayaa magaalada Addis Ababa ku qabatay hub iyo darees la doonaya in weerar looga geysto gudaha dalkaasi sida warkan uu ku faahfaahinaya Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan
wararka ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya ayaa waxa ay ku waramayaan in bakhaar ku yaala bartamaha magaaladaasi laga helay hub iyo dharka ay qaataan ciidamada qalabka sida ee waddanka Itoobiya. dharka ciidanka booliska magaalada Addis Ababa ay gacanta ku dhigeen ayaa waxa ka mid ah dariiska ay qaataan booliska dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, sida ka muuqata sawirro ay soo bandhigeen laamaha booliska waddanka Itoobiya. waxaana booliisku ay daaha ka qaadeen in bakhaarkaasi sida oo kale laga helay hub isugu jira bastoolad, bambooyin iyo rasaas aad u tiro badan, sida ay ku waramayaan saraakiisha laamaha amniga magaalada Addis Ababa. dhinaca kale booliiska Addis Ababa ayaa gacanta ku soo dhigay ilaa iyo 5 qof oo lala xiriirinayo hubka iyo dharka ciidan ee la helay in ay ku lug leeyihiin. waxaa shakhsiyaadka booliiska ay gacanta ku soo dhigeen hadda ku soconaya baaritaano lagu ogaanayo in ay door ku lahaayeen halista amni ee ay laamaha ammaanku ogaadeen. haddii wax dembi ah lagu waayo waanu sii daynaynaa, ayuu yidhi taliyaha booliiska magaalada. halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho. wararka dibadda ayaad maqli doontaan. tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka sidaha corona ayaa aad u korortay dalka Mareykankana, waxaana ay gaartay in ka badan 300,000 oo ruux, taasoo ka dhigan in Mareykanka uu yahay halka ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee la xanuunsanaya coronavirus. tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa muujinaya maalin qura in ay magaalada New York ugu geeriyoodeen xanuunkan 630 ruux, waxaana ay tirada dhimashada dalka Mareykanka oo dhan ay gaarsiisan tahay 8,000 oo ruux. madaxweyne Donald J. Trump oo warbaahinta ka hadlayay waxa uu sheegay in dalkiisa uu geli doono waxa uu ugu yeeray toddobaadkii ugu adkaa dagaal ay la galaan fayraska corona. waxa uu intaasi ku daray in shaqada samata bixinta ah ay ka qaybgeli doonaan ciidamada militariga Mareykanka. xanuunkan corona oo dunidu qalqalgeliya dalka dadka ugu badani ay u dhinteen waa Talyaaniga oo uu galaaftay in ka badan 15,000 oo ruux. waxaa ku xiga Spain oo ay dhimashadu marayso 11,744 ruux. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in caalamka oo dhan ay u geeriyoodeen corona dad ka badan 60,000 oo ruux, waxaana la xanuunsanaya 1,200,000 oo qof. farxiya ugu dambeyntiina dhegaystayaal inta la xaqiijiyay 19 ruux ayaa ku geeriyootay dagaal ku dhex maray waqooyiga dalka Mexico kooxo hubeysan oo daroogada ka ganacsada. wararka waxay sheegayaan in dagaalka oo soo bilowday gelinkii dambe ee Jimcihii soona gaaray xalay saqdi dhexe in qasaaruhu ku kooban yahay dhinacyada dagaalamay. dagaalka oo ka dhacay magaalo la yiraahdo Chihuahua oo waqooyiga dalka Mexico ku taala ayaa sidoo kale gaadiid lagu gubay. kooxahan ayaa isku haysta cidda maamulaysa daroogada magaalada lagu iibiyo. mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka oo aan dhexgelin dhinacyada dagaalamay ayaa sheegtay in xaaladu degan tahay islamarkaana aysan jirin wax khasaare ah oo rayidka soo gaaray. war kooban oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in laga fakarayo sidii gobolkaas loogu diri lahaa ciidamo xasiloonida soo celiya.